gabadha hadda maadaama Miss Soomaaliya loo doorto gabadha badan la yiri way ka qurux badan tahay oo dib wada aragtaa gabadha badan way ka qurux badan tahay automatically rag badan bay dooqeeda tahay laakiin aniga dooqeeya ma assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo laabasho wacan oo wanaagsan waxa ka codsanayaa haddii aad daawanayso inaad subscribe isaarto meesha kala kacsadee aad iyo aad baa u mahadsantahay boqolkiiba boqol fadlan meeshan ha igu dhowran fadlan please and please waa cods meeshan ha igu dhowran kala kaci waa cods aan ka codsanaya aad iyo aad baa u mahadsantahay maanta waxaan rabaa raxmo yar wiil soo codsaday baan rabaa macnaha wiil baa soo codsaday ma garanaysaa wiil baa soo codsaday inkastoo laakiin anigu mid arkan taqaana meelo badan oo lagu shaaho baan tagay ma garanaysaa oo rag badan ay joogaan marka saad ogtiin waayahan dambe waxa lagu falanqoodaa ama laga sheekaystaa siyaasadda macnaha Somaliland iyo macnaha Khartoum State baa laga sheekaystaa macnaha dagaalkaas cidda u dhaxaysa marka dagaalkaas mararka qaar waxa dhacda rag qaar inay soo hadal qaadaan raxmo yar marka rag weyn wallahi bilaa aad u jecel ma garanaysaa rag weyn oo hadda odayaal aad u jeclaaday ma garanaysaa marka waxaan arkay macnaha hadda video baan noo hayaa videogaas macnaha comment qof baa soo qoray ma soo codsaday ma garanaysaa marka waa la soo comment waxa la ninkan ku soo codsaday macnaha sida u aragtaa marka bal comment wixii macnaha ay ka samaysay iyadu sida u aragto ay ka samaysay iyadu sida u aragto bal gabar hadii la macnaha waa lagu soo doonayo macnaha nin baa sidan soo yiri sida u aragtaa bal comment-ga ibi lahayd baan fiirinaynaa ma garanaysaa laba wiil baa la joogtaa labada wiil kale waa qaraabada ama waa dad adigu ka dhaweeyaan marka bal adigu jawaabteeda fiirinaynaa wax yar wiilkaas wuxuu yiri yarta halaydo ma sha Allah wallahi horta gabadh aad qalbada u yarda waxa inta macnaha way garanaysaa jawaabtan inay macnaha iyadu ku habooneen qofkii macnaha jawaabi lahayn inuu asaga yahay bay garanaysaa inay iyadu jawaabto maaha sababtoo ay tahay gabadha wax ka mas'uul noqon kara aabaheed walaalkeed hooyadeed baa ka mas'uul noqon kara haddii inta lagu adeerkeed iyo abtiyaasheed baa ka mas'uul noqon karaya marka waxay tahay jawaabtaas adiga ayay ku qusaysaa ka jawaab haddaba markuu ka yar meeraystay waxay tahay dhageyso kan macnaha yarkan kale oo aan macnaha adeerkeed runaya oo aan kan kale inay iskaga dhow yihiin bay tii kana jooga ka jawaabaya marka isagana bal wuxuu ku jawaabaa fiirinayna ma aanu kuma bixin kara ma xasha Khalid baa jooga deegaanaha ala ka jawaabay Khalid way ka jawaabay wuxuu yiri yarta halay doono Soomaa horta Raxmo Umar Carab waxa lagu helaa si qaaliya si fudud ku bixin meel shuruudahaas waxaan ogahay inaad ka soo bixi kareen laakiin hadday dhacdo inaad ka soo bixi karaysid aan ku siinayna wow hadda macnaha wiilkii soo qoray comment-ga inuu daawanaya laga yaabo ama nasiib daawada laga yaabo garanaysaa comment-ga haddii aad soo qortay oo aad ogtahay inuu adiga yahay jawaabtii waa lagu siiyey marka shuruudahaas lagu sheegay kulley shuruudo waaweyn ma aha ka cabsanin waad buuxin kartaa nin rag iska dhigsan noole doon gabadha haddeertan u fadhiiso gabadha walaalaheed way ogyihiin ayadana way ogaan haddiiba ay ogaatay walaalaheedna aysan u ogaadeen maxaa kuu dhima war gabadha doon niyo gabadha u kaca hor u geer fadhiisan niyo nin rag intaas ka dhigto xiniyaday kugu jiraan or gabadha raadi fiyo kale noo haya asagana oo macnaha la leeyahay qodob ka hadla wiilalow warkaas taaganay saasna labisnay nin qodob nagala hadlay wallahi sax wallahi wax qodob caaw nagala hadlaba ilaahay waa qaal xagee joogtaan naga idin kala hadlayna hadda yartan qodobe xagee joogta xageed ku nooshiin naga wali qodob muhiim kala hadli lahayn laakiin meel joogan baan garanayn soo waa hadda yartan halka luuqayga soo gala anaga ku sheegaynay naga qodob muhiim oo wali kala hadlaynay video kala noo haya asagana oo qurux badan ma hubo inuu qurux badan macnaha horta videogan intaan horta wax yar baan ka faalanaa horta videogan waa Iqra Albatras Albatras maxay tahay horta magacaas Iqra waan garanay waa tii quraan ku jirtay Batras ama Batros adoo waxa ma garanayo magac wuxuu yahay meelkan ma garanay gabadhan waxa loo doortay Miss Soomaaliya macnaha gabdhaha Soomaalida ugu quruxda badan laakiin in la helo laga yaabo gabdha ka qurux badan la helo laga yaabo laakiin waxa loo doortay macnaha hadda Soomaalida macnaha gabadh ugu quruxda badan baa loo doortay gabadhan
marka horta aad bay u dhubanta waa caato ma garanay anigu waxaa lagu doortay anigu waxyaaba gabadhu horta way dheer tahay sida kale waa qurux badan tahay laakiin dadka kulley doortay gabadhan oo u codeeyey waxa ay ku doorteen anigu kuma raacsin macnaha gabadhan dooqaygu sidan maaha no dooqaygu waa dad badan baa laga yaabaa dooqeeda inuu noqdo sababtoo waa loo doortay soo dad badan baa doortay soo maaha laakiin dadkaas sida ay doorteen ee dooqeeda ay u noqotay aniga ima noqonin no dooqayga maaha dooqayga waxaa laga yaabaa mar kale inaan tuso macnaha challenge waan soo samayn doonaa macnaha gabdho badan oo macnaha dooqayga halkaa baad ku ogaan doontaa laakiin fiidiyowgan macnaha dad baa gabadhii baa aflagaadeeyba oo yidhi macnaha sida qaalin geela ay fuclaynaysaa qaalin geela waa tii ugu fiicnad horta waa caato waa very thin aad bay caato u tahay ta kale waa dhuubanta waa dhar tahay weji qurux badan way haysaa raggu laakiin waxyaabo kale gabdhaha ku doortaan I don't know ma gabdhaha coday mise wiilal baa coday wax ma garanayo dee kuwa lahaan sida qaalin geela bay ruclaynaysaa horta qaalin geela haddii bay ruclaynaysaa ama ay soconaysaa sida qaalinta geela u soconaysa waaba socodka ugu wanaagsanaaba ammaanba wal ammaantay laakiin inaad caynaysaad soo haysataa kala qaalin way tahay wallahi aad bay qurux badan maasha Allah laakiin aan dooqayga ma wax badan waan dhadhanay ma garanaysaa waxyaabo badan comment waa ka bixinay ugu dambaystii waxaan macnaha leeyahay gabdhaha horta badanaa horta gabadhan waxaa jira gabdho badan oo la tartamay oo mise Soomaaliya ay rabeen in loo doorto ma garanaysaa aniga ahaantayda haddii aad isdhihi lahayd inuu gabadh maxaad ku dooran lahayd no secret baan ka dhigtaa mise public baan kasoo dhigaa waa sheegaa aniga kulley qof walba horta sawir baa meel ugu dhegan adiga haddaad tahay gabadh sawir baa meel ugu dhegan macnaa ninkaa noocaas ah aad gursateeda mustaqbalka la wanaagsid baad isleedahay haddii aan anigu ahama ku kale u yahayna waxaa laga yaabaa inay gabadh sawir meel ugu dhegan yahay laakiin waxaa laga yaabaa gabadha noocaas ah inaad guursan weydo oo macnaha aad heli weydo mustaqbalka sababtoo meeshii wixii ilaahay ku qoray ilaahay ogsama marka gabadha hadda maadaama mise Soomaaliya loo doorto oo gabdho badan la yiri way ka qurux badan tahay oo degwaaba aragtaa ama gabdho badan bay ka qurux badan tahay la yiri automatically rag badan bay dooqeeda tahay laakiin aniga dooqeeda maaha waa garataan soo ma aad iyo aad ugu mahadsantihiin fiidiyowgan iyo fiidiyowga xiga intaan u kulmi doono